السلام عليكم odayaasha UFC-da dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada ciyaarayaan xasuusinaya ciyaar allaale ciyaar walba waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo sidaas la mid ah hadirtan waxaan miiska soo saartay ciyaartii ugu dambeysay ee Khabib oo ciyaaray 2019 ciyaartii ugu dambeysay oo championkiisa uu ku difaacday ayaan idiin wadaa soo dhawaada ciyaar xiiso leh Khabib iyo Poirier دعوة شوعا طبعا هو مغلسا سير جناي عيارتونا لوسي لوي عن ضوننا Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, a Jiu-Jitsu fighter holding a professional record, 25 wins. In December, one in Americana, Shani maaragtay 20 kulan oo guuleystay 5 kamidana waa uu guuldareystay sida halkaan meelkoorkiisa ka muuqato weerarkiisa iyo dhammaan macluumaadkiisa waa daawaneysaan ninkani waa ninkii mar dhow laga difaacay title-ka aad ayuu u xirfad badan yahay markay noqoto UFC-da waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu banjiga kulul feerka ugu adag kuwa tuuro ayuu ka mid yahay Khabibna oo ku soo badbaaday wuxuu ka mid yahay 28 qofood ee ka soo adkaaday weliba waxaan ku xasuustaa wuu ilmeeyay maalintii laga adkaaday wuxuu dhahay waxaan rabay inaan sameeyo riyo maaragtay muddo iga guuxiisa camal rumeyn waayay markii dambe Khabib wuxuu sameeyay fanaanadiisa sharing sameeyay fanaanada kala bedelinay fanaanadii markay Dustin waxay siinayay waxa gashanayo Khabib ciyaartan qaybteeda respect ay ka daawanaysaa yani respect badan ay ka muuqanayso oo dadka UFC-da ciyaaro dabcan waa sax si adag isku dagaalaan way isdilaan way isbaateen haddana waxa arki kartaa in aad isu naxariisanayaan kuwadana cadaawad fudud isku qabin oo ciyaarta kaliya ay maaragtay ku mis حتى عيارتها marka adaaway waxa xasuustaa in maaragtay qatar aad maaragtay weyn inuu la kulmay nigan Khabib ay yiraahdaan mar waxa ku jirta dagaalku arki doonaa Khabib qorfir oo qatar ku galay muridaa Khabib is hoping to keep it that way in this epic main event clash tonight. daawashada baashan aad baan u xiiseeyaa come on wada la wata dirtaan Nurmagomedov's striking has improved tremendously over the last 24 months or so. Had that knockdown against Conor McGregor, but in talking to Javier Mendez, he's taken it to the next level. That being said, doesn't figure to lean on it too much tonight. weliga ciyaaraha UFC-da hamowan inta aan noo sheegay dabcan waxaan hadlayaa kuwa UFC faniska just filling each other out. Nothing too crazy going on, obviously. come on they are alone now We've seen Dustin look for that calf kick pretty much so far. Keep his body on the outside, get that lead foot advantage. Dustin Poirier inaba caadi maahan laakiin ciyaartan waa laga baxsaday sidoo kale Dustin Poirier waxa soo garaacay ninkii yiraahdo Cano sidaas la midana dhowr nin oo champion oo wuxuu ku jabshay laba kamid ah nin hal kamid ah champion ko ninkii aad maaragtay Janiso oo kula dagaalamo oo helay kaalidkooda dabcan soo tigsada hada mar dhaxaas wuxuu la dagaalamay ninkii yiraahdo Cano waa asaga laga diyay sidaas la midana wuxuu la dagaalamay ninkan kale oo hadirtan ay yiraahdaan Justin Gaethje ninkan waxa la Dustin Poirier Justin Gaethje hada Khabib bilansiin kaalidkooda jooga ninkaas ay tilmaamayo oo la yiraahdo Justin Gaethje iyo ninkan Dustin Poirier way kulmeen
ninkaanana adkaaday laba nin oo keliya ka adkaatay ninkaas qabiib u balansan oo la ciyaari doono championka la ciyaari doono macnaha kulan finaal la ciyaari doono ninkaas hadda qabiibkooda asaga ninkaasi iyo marka loo fiiriyo marka ninkan hadda qabiib way soo kulmeen kanana hadda adkaaday nin uu qabiib ka soo adkaaday ayaa ninkaas asaga ka adkaaday okay ila fahmaysaan kelmadaas waa kana qabiib marka habka u dagaalamo noocan qofku uu kamanayo oo majijinayo dhibkuu jiinayo dhinaca uu duduubaya kana macna marka ciijidan uu ku dayay Mr. Poirier إنه بعد ما سهل يسكون مسلمين سيد كانوا فلو دلائل يعني ما كانوا قطو دجالك وجهي سويا لأنه وحول بالعلنا وجهي تو فكرنا إنه تعرف ولا عرفت إنه ما فيش ماشي في هذا لابد جير أو مسكودي خبيب نيكا إنه عرفت مصر وريق كود كاميرون طبعا وريق السدحات يفراد ميلا صلوات هذه السدحات ما هان جعلها وحسني مركب هل كينو وريسي وانت وقت مسلم كانت خمسة ودي وودي مر السدحات كينو ودالي على قرنا ودوانا علاش عجل كدعان No separation for Poirier, which could prove problematic. Well, he keeps getting behind his arms like that, and that's going to be an issue. الكاريباديتوس ولا خليل وايو باش تدير لي زين محال ديغا نينكا دولكو هذا ثاني كان أبغى سنة غيري waxaan ku dhameyn doonaa ama ku soo finishi doonaa ninkaas oo ciyaarta ugu soo adkaan doonaa ku soo jiri doonaa intaas kale oo ciyaarta hadda inuu balansan yahay weyn all title championka macnaha xayato lightweight-ka ninkan hadda ciyaarta ula ciyaarayo oo kale waa marka wuxuu leeyahay waxaan ku soo afjarayaa wareegga labaad ama saddexaad micnihiisana waa wuxuu yidhahdaa markii la weydiiyo dagaalkan hadda kan awjihiis waasliya markii la yidhahdo wuxuu ku jawaabaa keliya laba kelmood wuxuu yidhahdaa kow waa daalinaya markuu daala kadibna aan soo gabagabeynaya wareegga koowaad labaad saddexaad intaas wuu daalin karaa macnaha Nurmagomedov at his lolling here, and they want him fighting on half into the center. That's what he's got to do. He's got to get respect with his hands early, otherwise he can just keep wrestling him. More than anything, they're saying keep going for that switch, and it's working, but you got to keep the leg when you switch. You keep the leg, even if he keeps his hands locked, at least it gives you some leverage. He's got Poirier thinking right now, especially after that takedown. Poirier backing up here, early round two. Poirier with a big right hand. Now back Nurmagomedov up. Khabib now on the retreat. Hard to know the extent to which that hurt Nurmagomedov. Up on that right hand. Khabib able to avoid it. Poirier got to throw like this. This is what he's got to do. He's got to get respect. Nice kick to the body by Poirier. And he slipped. Khabib counters to the inside of that lead leg of Poirier. Against the fence. Takes out the speed on that double leg. It's just incredible. That's a real good arts and anything that you can feel is how fast he can shoot. What an atmosphere in this arena. Every strike that's thrown, takedown that's secured. Incredible.